السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال وما سنتهين مقال كان أدب مهم وياهي إن أد فافسان ودعوتنا هل كان وماشي الدنباء شركة التوكل جندين كده الدنباء وأنت بدن سيحضه ninka lagu sheego inuu yahay nin juudaan ah oo dadka qaniina dad badan soo qaniinay sida la sheegayo magaalada cabsi badan ku beeray hooyooyinka ay aad u baqayaan ilmaha lagala cararayo isaga la dhagxinayo la dilayo marka halkan oo ah meesha muxuu ahaa lagu hayo oo gurigan ayaa hadda u joogaa saaka oo aan ku booqanaya bal si aan u eego waxa ka jira inuu yahay waxa lagu sheegayo inay tahay dhab iyo in kale magaciisa weydiin doonaa sida la ii sheegay warbixinta yar ee la siiyay baan marka hore idin faahfaahin doonaa waxa la ii sheegay ninkan magaciisa isaga noo sheegi doona laakiin gacantan ayuu walaalkan waa kan muuqaalkiisa gacantan ayuu naafo ka yahay gacantan naafada uu ka yahay ayaa waxay sababtay in ay dad badan runtii ay isku dayaan inay u gacan qaadaan oo dilaan kadibna gacantii kale midig ayuu isku difaacay farba ka jabtay kadibna wuxuu maciin biday in uu qaniinyada isku badbaadiyo sidoo isagaba noo sheegay taa u jeedaan nabara badan ayaa gacantan ka muuqata waxaan waa dhagxaan lala dhacay oo qof bini aadana haddana si aan caadi ahayn oo gacanta naaf ka yahay haddana waxaas dhan waa nabaro wajigiisa u jeedaan waa muxuu ahaa waa dil weeye waxaas si xun baa wajiga looga garaacay iyadoo la leeyahay waa nin juudaana walaal wax la sheegayo marunba juudaan miyaad adig ma walaal haye aniga xasan ciise bin mariyo la yiraahdaa markii bidnooys xasan ciise bin mariyo la dhihi jiray markii haye aabaha magaciisa ciise bin mariyo la dhihi jiray markii bidnooys haye gacanta ka daji waa gartay maxaa sidee waxaan kugu gaareen walaal ma qasii ugu gaaran wallahi waa iska amaran leh haye xabada marka hore boos iga dhacday xabada dhaawaceeda la soo qaaday haye maxaad marka dadka isku maagtaan maxaa dadka inay ka dhaxay isku maageysaan oo ay sida kuugu dilayaan oo ay dhagxaanta kuugu garaacayaan meel iska fadhiya bilaa camal ma shaqayn ha وحبها إنه إسكف فكري مال إسكف فديها بس كاتورين كلهم محمش كفريسي واتا وحيالات توريه ساق وكلا صوب هاي صوبت أدتك قنية ذا مرة قارق محاوة ديك سنجت صوت معيتها مرة استغل نقفه قنية واديك سنجت ما دام قعنت أنا نافقتها هذا محمش كدعك تنا أي فرتنا كاتشبنتها ساس أودت بعد أسمينيسي وايه ولا المقع إيشك السلام عليكم وليلة صلاة سمكة بالليلها هاي ليلة ضعتك كرو قاضية نكن دتك قعنت كوهيات كجرتا محا كجرة waxa lagu sheegayo ila aad naftiga bini aadam baa ka baqi lahayd hadii uu juudaan yahay waxba kama jiraan warkaas waa been haye waa wax been oo laga sameeyay juudaanna ma qabo waxna ma qaban ninkan waa caafimaad qaba waxa weeyaan waa xagga xiskan baan anu isleeyay wax kale uu qaba ma jirto waa gartay ninka waa la dilay wadada isagoo yaalan qaadnay maamulkii istaalkan geynay waxba laga ma qabanin wali sidii aan gacanta ugu haynaa haddana culimada iyo waxaan ka warsugaynaa dawladda insha Allah uu caafimaadaya waxaan codsan lahaa dadka walaalihiisa oo islaamka inay ninka u soo gurmadaan inta dadkooda loo helayo assalaamu calaykum abay magacayga magacayga samsam xaafadiina horteedu ninkan seexdaa dadka caawiyaad ku jirtaa ma waadan ka baqin may waayo qofkan ma aha waxa lagu sheegaya waayo ma aha qof juudaan waa juudaanku saan uma dhaqmayn anigu xataa ma ag fadhideen waayo waxaan leeyahay dareen qof bini'aan wax kaga boqo waa carar la hadeen waayo ma aha juudaan dhaawacyadan arkaysiin waxay dhaheen xataa jirkan saac iscunay bay shacab ku sheekeynayaan anigu markuu xaafadda yimaado dhagax la dhacayeen laakiin wuxuu iscunay ma ahan gaardho dhagax bay la dhacayeen dhagaxu qofka markaad ku dhufatay dhaawac baa gaarayo dhaawacyadan marka waa dhagaxyadii anagu muhiimadeena waxa way dadka shacabka garow ku nool inay ninkaasi soo إن دجحنا يكدايان وقف بني آدم ونفط هذا كله له سدوا وش رقم سأقولنوليهم بقولنولي حتى حيوان كما بنانا دشين هذا النبرة كو أركيسين ويا بسكودين هذا أركل هذا حلي يهرقوا داوعوها حتى إنها مصي سنين داوتين حتى صح مركا ضد كان بساو قريبا أوران كره حتى نكان حتى قمت المام كرقف وعلن ويقف وعلن سان نوق مشكيين عندنا جماعة عنين ونجعر لها مركب ما أهم بان أورنها أنا ومركب شعب كل شيء جاي يسني كاس نجح كدايان perception كقلدن إيه كآمن يعني كان أورنا يعني شودان ويا ما أهني كان شودان ويا أنا جو بني آدم باهي ما أكفديه وكعر لها إن كان وني مير قبل شعب كوالي
qaniyadana waxa sabab u ah labada gacmood wuxuu ka yahay dhaawac gacantan shacabka reer Garowe waa dhaawac ka tan naaf ka yahay taasa u keenta qof markuu qabsado inuu qaniino waayo waad qiishoonaysa binaadan baata markii lagu dhagxeeyo anigu xaafadda markuu iimaanay ninkaasi waxaan nin dhaawaca waxaan lagu sheegay juudaan way waa ka carar jirna xaqiiqdii ninkaasna waxa la dhacayaa de wax binaadanka xataa u dul qaadan karin hadda xaafadda ma jiifaa haddaadan ilaalin waxay la dhacayeen dhagax bay la dhacayeen waxay ku leeyeen waa juudaankii iyo dhagax intee qaatan hadda ugu dambeyn maxaa u qabanaysaa markii wadaan hoosh anagu hadda waxaan u qabanaynaa waxaan ku xareynaynaa xirada dadka hoogaa dhimirka la in la keeyo lagu xanaaneeyo xataa qof hoogaa mijirkiisa qabo way saa uma dhibir mar laa marka muhiimadda waxa weeye shacabka Garowe ku nool inay binaadanka xataa hadduu miir la yahay isan dilin ay u arkaan qof sagi ka duwan hadduu ilaahay shacabka qaybtood way shacabka dhan maahan may shacabka qaybtood way qofku hadduu aqli leeyahay aqli adigu ilaahay ku siiyo garaadka uu ku siiyay ma ahan bini'aadankii miirka la'aa inaad dhaawac u geyso xataa hadduu waalan yahay way hadda ninka ma waalan ummadii baa waashay saa u gashay dhaawacyada ku yaala ummadii baa sabab u ah marka muhiimadeena waxa weey aan halka u fadhina shacabka inaysan ninka mar dambe dhagax ku dhufan wax juudaan la dhaho uusan jirin uusan ahayn juudaan intaas aan ku soo walaalkeen caawin buu naga rabaa insha Allah meesha dadka dhimirka la la geyn doona haduu la yiraahdo halkaas lagu caawin doona wajigiisa waxa soo nabaraha loo geystay sa ujeedaan waa la garaacay si xun baa loo galay waxa la yiri waa nin dadka cuna ninka dadka cuna yahay anigu ma hor istaageen waxaan codsanayaa oo umada Garowe ku nool qaybtood waliba dadka oo dhan ma ahane in ninka masaakiinka muuqaalkana la faafiyo ninkana laga daayo dilka inta magaalada laga saarayo oo la geynayo meesha ku haboon insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.